waxaa la dhaliyay in ka badan 200 oo hat-tricks ama saddexley taniyo markii Premier League la bilaabay sanadii 1992 ilaa 93 haddana hal nin oo kaliya ayaa ka sareeya inta kale isagoo wata 12 saddexley ma aha Cristiano Ronaldo kaasoo ka tagay Manchester United kuna biiray Real Madrid dibna ugu soo laabtay Manchester United isagoo 3 koob ku qaatay horyaalka England ma ahan xidiga Liverpool ee Mohamed Salah kaasoo 4 horyaal la qaaday Reds ma aha halyeeyga Manchester United Wayne Rooney kaasoo saddexley ee uu dhaliyay ay ka caawisay inuu ka mid noqdo gool dhaliyaasha taariikhda horyaalka xitaa ma ahan Alan Shearer hogaamiyaha gool dhalinta abid ee Premier League inkastoo uu haysto rikoorka hal xilli ciyaareed xidiga cusub ee Man City Erling Haaland ma laga yaabo inuu ka mid noqdo gool dhaliyaasha ugu caansan horyaalka waqtigan uu xirfadiisa ku guda jiro yaa ugu dhalin badan saddexleyda Premier League weeraryahankii hore ee Manchester City Sergio Aguero ayaa dhaliyay saddexleyda ugu badan taariikhda Premier League isagoo dhaliyay 12 saddexley 10 sano oo kooxda uu la joogay Aguero ayaa Man City kaga soo biiray kooxda reer Spain ee Atletico Madrid sanadkii 2011 wuxuuna u saftay 275 kulan oo horyaalka ah wuxuuna u dhaliyay 184 gool oo horyaalka ah saddexleydiisii ugu horeysay ee uu dhaliyay hal bil kaliya ayuu ku jiray xil ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee kooxda isagoo saddexley ka dhaliyay Wigan bishii September 2011 saddexleydiisii ugu dambeysay waxay ku timid burburkii Aston Villa isagoo 6-1 kaga badiyay bishii Janaayo 2020 kadib markii uu u dhaqaaqay Barcelona weeraryahanka reer Argentina ayaa lagu qasbay inuu ka fariisto ciyaaraha sababo la xiriira xanuun dhanka wadnaha ah midka ku xiga Aguero waa halyeeyga Premier League Alan Shearer oo dhaliyay 12 hat-trick halka Robbie Fowler uu ku jiro kaalinta saddexaad isagoo dhaliyay 9 haddana aynu eegno liiska iyo sida u kala sareeyaan Sergio Aguero wuxuu dhaliyay 12 saddexley isagoo u dheelaya Man City Alan Shearer wuxuu dhaliyay 11 saddexley isagoo u dheelaya Blackburn iyo Newcastle Robbie Fowler wuxuu dhaliyay 9 saddexley isagoo u dheelaya Liverpool iyo Man City Thierry Henry wuxuu dhaliyay 8 saddexley isagoo u dheelaya Arsenal Harry Kane wuxuu dhaliyay 8 saddexley isagoo u dheelaya Tottenham Michael Owen wuxuu dhaliyay 8 saddexley isagoo u dheelaya Liverpool Newcastle iyo Man United Wayne Rooney wuxuu dhaliyay 7 saddexley isagoo u dheelaya Man United Luis Suarez wuxuu dhaliyay 6 saddexley isagoo u dheelaya Liverpool saddexleyda ugu badan ee hal xil ciyaareed oo Premier League ah la dhaliya inkasta oo Erling Haaland labadiisa saddexley ee horaantii 2022 iyo 23 ee ahaayeen kuwo cajiib ah weli ma uusan gaarin rikoorka hal xil ciyaareed xilli ciyaareedkii 1995 ilaa 96 halyeeygii Alan Shearer ayaa 5 saddexley oo Premier League ah u dhaliyay Blackburn Rovers markii ugu horeysay wuxuu ka dhaliyay Coventry City September 23 1995 waxa kale oo laba kale oo saddexley ka dhaliyay Nottingham Forest iyo West Ham ka hor fasaxa saddexleydiisii afraad wuxuu ka dhaliyay Bolton bishii Febraayo 1996 ka hor inta uusan tiisi ugu dambeysay ka dhalin Tottenham bishii Maarso isla sanadkaas 1996 Alan Shearer ayaa sheegay 3 ka mid ah 7 kulan ee ugu dambeysay kooxda isagoo sanadka ku dhameystay 31 gool oo horyaalka ah Harry Kane ayaa kaalinta labaad kaga jira qiimeynta isaga oo dhaliyay 4 saddexley ah xilli ciyaareedkii 2016 ilaa 17 isaga oo dhaliyay dhammaan goolashiisii kadib markii uu jadwalka isu rogay sanadka cusub waxa uu dhaliyay labadiisa saddexley ee ugu dambeysay labadii kulan ee ugu dambeeyay ee xilli ciyaareedka isagoo ka caawiyay Spurs inay ku dhameystaan kaalinta labaad iyagoo ka hooseeya kooxda haysata horyaalka ee Chelsea ciyaartooyda kale ee saddexleyda badan ka dhaliyay xilli ciyaareedka Premier League waxaa ka mid ah Cristiano Ronaldo Thierry Henry kaasoo 2 saddexley dhaliyay 3 xilli ciyaareed oo isku xigta Sergio Aguero Wayne Rooney Didier Drogba Michael Owen iyo hadda Erling Haaland yaa haysta saddexleyda ugu dhaqsaha badan taariikhda Premier League weeraryahankii hore ee Southampton iyo Liverpool Sadio Mane ayaa dhaliyay saddexleydii ugu dhaqsiyaha badneed taariikhda Premier League markii uu 3 gool ku dhaliyay 2 daqiiqo iyo 56 ilbiriqsi gudahood kulankoodii Southampton iyo Aston Villa bishii May 2015 waxay ahayd qaab ciyaareed indha la'aan ah iyadoo Southampton ay 3-0 ku hogaaminaysay daqiiqadii 16aad wax ka yar 3 daqiiqo ayaa u dhaxaysay goolkii koowaad iyo kan dambe ee Mane waana waqtigii ugu dhaqsiyaha badnaa taariikhda horyaalka saddexleyda cajiibka ah ayaa jabisay rikoorkii hore ee Robbie Fowler kaasoo dhaliyay 3 gool ee uu ku dhaliyay 4 daqiiqo iyo 33 ilbiriqsi isagoo Liverpool u dheelayay bishii Agoosto 1994 rikoorada kale ee saddexleyda Premier League saddexleydii abid ugu horeysay ee Premier League la dhaliyo waxaa Leeds United u dhaliyay Eric Cantona bishii Agoosto 19
1992 markaas oo uu ka dhaliyay Tottenham. tani markaas in ka badan 200 oo saddexley ayaa la dhaliyay ciyaaraha Premier League. rikoorka saddexleyda laga dhaliyay hal koox. Luis Suarez ayaa ahaa ciyaaryahanka kaliya ee taariikhda Premier League saddexley ka dhaliyay hal koox, isagoo markii saddexaad argagax geliyay Norwich City bishii December 2013. Suarez ayaa 6 jeer wadar ahaan saddexley ka dhaliyay Premier League. laba saddexley laga dhaliyay hal koox hal xilli ciyaareedkii 2007 ilaa 2008 Emmanuel Adebayor ayaa u dhaliyay saddexley Tottenham labadii kulan ee horyaalka ee ay la ciyaareen Bolton xilli ciyaareedkaas, taasoo ka dhigan markii ugu horeysay ee ciyaaryahan Premier League uu saddexley ka dhaliyay hal koox laba kulan oo ay iska hor imaadeen hal xilli ciyaareed. saddexley la dhaliyo kulamo isku xigxiga Premier League. 7 ciyaartoy ayaa saddexley ka dhaliyay kulamo isku xiga, waxaana ugu horeeya Les Ferdinand oo u ciyaarayay Queen's Park Rangers 1993. waxaa kale oo guushan sameeyay Ian Wright, Didier Drogba, Wayne Rooney, Harry Kane 2 jeer, Sergio Aguero iyo kii ugu dambeeyay ee Erling Haaland. saddexley kaamil ah ama perfect hat-trick la dhaliyo. Erling Haaland wuxuu noqday ciyaaryahankii 35aad ee dhaliyay saddexley kaamil ah ama perfect hat-trick kulankii Nottingham Forest August 31 2022. saddexleyda kaamilka ah ama the perfect hat-trick waa marka 3 gool lagu dhaliyo mid lugta midig, mid lugta bidix iyo mid madaxa ah. Robbie Fowler waa ciyaaryahanka kaliya ee taariikhda Premier League dhaliyay saddexley kaamil ah ama perfect hat-tricks, halka Sergio Aguero iyo Yakuba ay yihiin kuwa kaliya ee 2 jeer dhaliyay saddexley kaamil ah. saddexley madax lagu dhaliyay ciyaaryahanka Everton Duncan Ferguson iyo Solomon Rondon ee West Bromwich Albion waa ciyaartoyda kaliya ee taariikhda Premier League saddexley ku dhaliyay madax. Erling Haaland ayaa bilaabay ceyrsiga rikoorka saddexleyda weeraryahanka cusub ee Man City. Erling Haaland ayaa ugu dambeyntii isku arki kara inuu jabiyo rikoorka Premier League ee Sergio Aguero ee 12 saddexley. waxaa laga yaabaa inuu ku bilaabo jabinta rikoorka Alan Shearer ee dhalinta 5 saddexley. 22 sano jirkan ayaa 2 saddexley ku dhaliyay kulamadiisii 4 iyo 5 ee Premier League ee uu wajahay Crystal Palace kadibna Nottingham Forest 4 maalmood kadib dhamaadkii August 2022. saddexleydaas labaad ayaa Haaland siisay 9 gool xilli ciyaareedka 5tiisii kulan ee ugu horeysay Premier League, isaga oo balan qaaday kuwa kale oo badan inay imaan doonaan. da'yaraantiisa awgeed waa suurtagal in Haaland uu dhaafo rikoorka Aguero oo uu noqdo halyeyga Premier League.